hogaamiyihii ayaa dadka oo dhan isugu yeeray si ay kulan u yeeshaan. Sababtoo ah shabeelkii agagaarka xerada joogay weli wuu nool yahay. Sidaa darteed caawa waa in qof la geeyaa afaafka godka si uu u ilaaliyo. Hawshan adag waxaa loo dhiibay ninkii ugu madoobaa xerada oo dhan. Doorashadani uma baahnayn codbixin, waxay ahayd mid ku salaysan midabta koor. Go'aankaas xikmadda leh ee hogaamiyaha saaxiibadii waxay ninkii yaraa ee madoobaa ugu mahadceliyeen. Sababtoo ah dadkii hore ee ilaalin jiray habeenkii waxaa cuni jiray shabeelka. Markii la arkay in arrintii weyneyd la isla gartay ayaad mar kale soo jeedisay dhibaatada goonada. Lama filaan isla markiiba waa lagu diiday. Marka habeenkii markii la gaaray si lama filaan ah maskaxdaadu way furantay. Waxaad isticmaashay laf xayawaan ah si aad irbad uga samaysato, kadibna waxaad ku dartay seedaha xayawaanka. Waxaad harag xayawaan ka toshay surwaal. Sidaas ayuu ku dhashay surwaalkii ugu horreeyay ee aadanaha. Si kastaba ha ahaatee, saaxiibka madow kuma uusan jeclaysan iftiraacan. Sababtoo ah markaad xirato suuliga ayaa kugu gaabinaya. Laakiin adiga kaliya ayaa og in surwaalku kaliya uusan ka caawinayn in lugaha aysan isku xukmin, laakiin sidoo kale uu ku tiirinayo. Xitaa marka uu shabeelku eryanayo, xawaarahaaga cararku uu kordhaya, laakiin si lama filaan ah shabeelkii ayaa weeraray xeradii, wuxuuna khatar geliyey nafta gabadhii quruxda badnayd. Adigoo ah qof si qarsoodi ah u jecel, waxaad si geesinimo leh isugu dayday inaad ishortaagto, laakiin isla markiiba wejigaaga waxaa ka muuqatay argagax iyo amakaag markaad aragtay shabeelkii oo si daran ku eegaya. Gebi ahaanba waad naxday oo istaagtay. Kaliya ma aadan istaagin, laakiin sidoo kale waxaa ka yimid kaadi cabsi darteed. Ur xooggan ayaa hawada qabsaday, taasoo keentay in dadkii goobta joogay oo dhan iyo shabeelkiiba ay yaabaan. 3 ilbiriqsi xilli muhiim ah, hogaamiyihii ayaa helay fursad. Wuxuu tuuray hubkiisii, sidaas ayuuna shabeelkii gebi ahaanba ku eryay. Ugu dambayntii, si aan la yaab lahayn, hogaamiyihii ayaa mar kale noqday geesi. Halka adiga miskiinka ah kaliya aadan ku ceebaysnayn gabadhii hortada, laakiin sidoo kale ay ahayd inaad si dhuumasho ah webiga ugu aadaa si aad isaga dhaqdo. Natiijo ahaan, si lama filaan ah waxaad webiga dhexdiisa kula kulantay qof kale oo xaaladaada oo kale ku jira.